السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندا وضيال كسو دوادا تلوين أضي واييلا وغتغي تفيرتيسي تلدا كوباد هاكود دقدقين وينانتا مركا آد كعانكا نقطان waxa aad jeclaan doontaan in sidii qof mas'uul ah oo kale la idin la dhaqmo noloshaada xor u noqo oo waxa aad rabto samayso laakiin xaqiiqadu sidan maaha waa markii aad u baahnayd in laga dugo waxa ay ku soo jabeen kuwii ka horeeyay talada labaad muhiimadda ereyga maya arrimo badan oo aan wanaagsanayn ama aanad qaadi karin ayay kuula imaan doonaan bulshada aad ku dhex nooshahay marka waa inaad barataa in aad oran karto maya wixii aan dantaada iyo diintaada ku jirin sidaa oo kale marka aad hadaf u socotaan maya badan ayaad la kulmi doontaan haniyad jabina talada saddexaad saaxiibadu way tagaan wayna yimaadaan waxaad baran doontaa asxaab iyo dad kale oo saamayn ballaaran ku yeesha noloshiina dadka waayaha iyo duruufta ayaa bedela waxaa laga yaabaa si ku talagal ah ama si lama filaan ah inaad u weydaan qof qaali ku ah agtiina waxa aad ogaataan wax kasta oo aad weydaan in bedelkiisu dunida dacal ka yaal talada afaraad doorashada wanaagsan marka aad dooranaysaan qof aad nolosha la wadaagtaan ama saaxiib ha ku dooranina maal ama qurux waxa aad doorataan qof dhammaystiri kara galdaloolooyinkaaga ma jiro qof bilaa-iini ah muhiimaddu waa wanaagiisa iyo xumaantiisu kee ayaa badan talada shanaad kalsoonidu waa shay muhiim ah oo dhisidiisu adag tahay burburkiisuna fudud yahay qalbiguna waa mishiinka bani aadamku ka dhaqaaqo marka cid alla iyo naftiisa aan ahayn ha u kalsoonaanina sida shimbirtu ugu kalsoon tahay baalasheeda dadka iyo dunyaduba wax walba ka filo talada lixaad baahida inta awoodiina ah iska ilaaliya in aad baahidiina iyo dhibta idin haysata bulshada la wadaagtaan maxaa yeelay wanaagiina iyo sharaftiina ayaa ku jirta qof haddii uu baahi idinla yimaadana ama garab idin weydiisto isku daya in aad booskiisa isku miisaantaan talada toddobaad ma tihid qofka keliya ee daalay waqtiga dhallinyaranimadu waa waqtiga qofka ugu rafaad badan yahay noloshiisa waa goorta aad waxbarashada ku jirto waa goorta aad tacabka mustaqbalkaaga ku jirto hamoodin in aad keligaa daalayso ee waxa aad ogaataa in jidka dadka xidigaha joogaa maanta soo wada mareen qaar kalena hadda ku jiraan dadka xilligan waxaa kala saara oo iftiinkooda dambe go'aamiya sida ay xaalka ugu samraan ama xilligan ugu samraan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa talooyinkii waayeelku uu uga tegay tafiirtiisa haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe saar haddii aad ka heshay muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada halkaad nagala socotaan waa Akram Media Production mahadsanidin